madaxweyne aad iyo aad baan iyo kulmiyaba aan uga raalinahay si imka doorashadii uga shaqaynayaan maanta inaga waxa inoo muhiim in doorasho noo dhacdo saddexda xusbi markay heshiiyeen aanu ku soo heshiinay doorashay dhaqaaqnay cadow badan baa samaysmay saami qaybsiga sheegay malaka dadka ka hadlaya arrintu waxa la ciisaantu baroortu ciisaanta ka weyn saami qaybsiga lama diidiye inay Soomaaliland socotaa la diidaya islaamka seleskii baa kacay marka aragnay inaynu heshiinay oo doonayna wax wada qabano common ground yeelanay doorashadaasi waxay noqonaysaa doorasho wanaagsan insha Allah taala cid inaga hor joogkan kartaana ma jirto inagoo inta ka liidana ayaa la damcaynaynaa banjari kar weyni maantana inagoo maanta ciidan ka haysana dadka oo dhan midaysan yihiin doorasho loo midaysan yahay waxay nagu wanaagsan in doorasho nabadgelyo sameeyna dad wanaagsan oo iimaan ilaahay subhanahu wa ta'ala keena waxa weeye dalkan wuxuu leeyahay mustaqbal fiican baleen ilaahay istaraatiijiyad fiican buu ina dhigay Taiwan-ka aan soo dhaweynaa waxay noo keenay waxa weeye buqcadda ilaahay ina dhigay ayaa weeye inuu ka faa'iideysana weeye waxaanu ka faa'iideysanaa inaan midnimo aynu isku dul qaadanaa mikrofoonka iska daynaa salaadiinta u dirnaa magtayna guraan siyaasadda ay ka baxaan ayaa weeye asxaabta la nooleeyaa institutions la dhisaa adduunka waxa kala saara waa institution building waa inuu dhisnaa institutions inclusive ah oo loo wada dhan yahay oo laga wada muuqdo oo beelaha laga baxa beel bayna ragaadsan madaxweyne beelaha waxa laga baxaya waa cadaalad iyo waxay haysano oo si siman dadka loogu qaybiyaa weeye toon loo eegin gobolku ka soo jeediyo iyo reerku ka soo jeedee aqoontiisa qofka lagu meel mariyaan doonaa insha Allah taala waxaan halkay ku soo dhameynayaa hambaliyo inta imaka aan doorashada ku jirnana insha Allah taala campaign-ka lacagtii uu baad noo hadhay madaxweynuhu lacag fiican buu bala qaaday shalayto waxaan jecelahay intay ina siiyaan international community moojane inta kale inuu dahabshiil iyo shirkadaheena inuu ka qaadi doonaan jecelahay insha Allah taala oo gacan ka geysan doonaan in jecelahay insha Allah waan wada jirkeena wax ku noqonaayeen aan wada jirna walaalayaal waalidkay ka soo saaray caruurta iskuulkana waxaan leenahay hambaliyo caruurtiina maanta caruur badan baa jira oo soo sheegay xirsi aan chance lahayn insha Allah waynu gaari doonaa waxa aynu haysano nabadda aynu haysano ayaynu ku gaari doonaa wax wanaagsan oo badan insha Allah ku gaari doonaa nabadda iyo midnimada in la shano waa insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh